Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Midowga African Union ee dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta, biyaha, gaadiidka, macluumaadka farsamada iyo isgaarsiinta kadib doorasho ka dhacday dalka Masar. Kursigaasi waxaa Soomaaliya kula tartamayay dawladda Kenya, wadamada Djibouti, Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan ayaana cadeeyay mowqifkooda ku aadan taageerada ku guuleysiga kursiga ay Soomaaliya kaga guuleysatay dhigeeda Kenya, iyaga oo ballan qaaday in ay gudoomiyaha cusub la shaqeyn doonaan. dalalka la isku yiraahdo Bariga Afrika oo ka kooban 13 dal waxa ay xaq u leeyihiin inay hal kursi oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ah uu ku matalo Midowga African Union. dawladda Ethiopia ayaa horay ugu fadhin jirtay kursigaasi markii uu dhamaaday muddaxileedkiina waxaa la soo bandhigay in loo tartamo cidii kale ee u tartamaysa si ay markaasi u matasho wadamada kale ee Bariga Afrika. wadamo badan oo u loolamayay qabashada xilkan ayaa ugu dambeyntii waxa isugu soo haray Kenya iyo Soomaaliya. ugu dambeyntiina Soomaaliya ayaa ku guuleysatay waxayna sidaasi ku noqotay hogaanka dalalka ku midaysan ururka Midowga Afrika ee dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha. guushan ayaa Soomaaliya kaga dhigan fursad muhiim ah oo ay kaga soo muuqan karto siyaasadda caalamka iyo tan gobolka Geeska Afrika. Kenya oo la tartamaysay Soomaaliya ayaa guul darro dhaxashay kadib markii shakhsigii matalayay Soomaaliya uu ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Midowga Afrika ee dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha. magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Mareykanka ayaa dib ugu soo laabtay dalka qaasatan caasimadda Muqdisho. wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa muddadii uu safarka shaqo ku joogay dalka Mareykanka waxa uu kulamo miro dhal ah la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka, gaar ahaan aqalka cad, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda USAID. waxa uu kala hadlay dhammaan xubnihii uu la kulmay sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka helay mas'uuliyiinta Mareykanka ee uu la kulmay ballanqaadyo ku aadan in ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta Soomaaliya isla markaana taageero lixaad ay siin doonaan dawladda federaalka Soomaaliya ee iminka dalka maamusha. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ka qayb galay shirka sanadlaha ah ee Bangiga Adduunka iyo IMF, shirkaasi oo looga hadlay geedi socodka deyn cafiska ee dalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen deeq bixiyaasha iyo hay'adaha caalamiga. ra'iisul wasaaruhu intii uu joogay Washington waxa uu hay'adaha caalamiga ku qanciyay in ay markaasi ka cafiyaan Soomaaliya deymaha ay ku leeyihiin. dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigtay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyadoo buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee ku aadanaa deyn cafinta Soomaaliya. waxayna dawladdu ballan qaaday inay si laba jibaari doonto nidaamka dib u habaynta maaliyadda Soomaaliya. safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ayaa ka hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha, ganacsiga, mashaariicda Shiinuhu uu ka fuliyo Soomaaliya, horumarada la gaaray iyo arrimo kale oo badan. Mr. Qin Jian ayaa marka hore waraysigiisa waxa uu ku sheegay in Shiinaha iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir saaxiibtinimo in ka badan 600 oo sano ka hor. wuxuuna sheegay in caasimadda Muqdisho ay ku tallaabsatay horumar ganacsi oo la taaban karo tan iyo markii dhidibada loo taagay xiriirka diblomaasiyadeed sanadkii 1960kii. xiriirkeenu wuu sii adkaanayay lana jaan qaadayay hadba isbedelada markaasi jiray. waxaan gaarnay natiijooyin wax ku ool ah oo ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada, ciyaaraha, tiknoolajiyadda, daryeelka caafimaadka iyo waxyaabo kale oo badan. laga soo bilaabo 1960kii ilaa 1991 dawladda Shiinuhu waxa ay 89 mashruuc ka fulisay Soomaaliya oo ilaa iyo hadda laga xusi karo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir iyo tiyaatarka qaranka, kuwaasi oo martiqaad u ah xiriirka saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo Shiinaha, ayuu yiri safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian.
sidoo kale dowladda Shiinuhu waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay taageerada Soomaaliya iyadoo mashaariic horumarineed ka fulisay Soomaaliya safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay si adag u taageerto nabadda horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya isagoona hadalkiisa inta ku daray in ay kaalin firfircoon ka qaateen taageerada arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya sida cunnada nafaqeynta bixinta teendooyinka marakaneeco iyo bixinta lacago lagu fuliyay gargaar degdeg ah oo loo baahan yahay dhanka kale Master Qin Jian ayaa ka hadlay muddada uu joogay xafiiskiisa Soomaaliya horumarka uu gaaray iyo caqabadaha ka hor yimid wuxuuna yiri waxaan joogaa Soomaaliya muddo ka badan 2 sano waxaan dareemayaa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad aad isu jecel dadkana jecel waxayna jecel yihiin nabadda waxayna rajeynayaan nolol wanaagsan waa dad si adag u shaqeeya rajadooduna tahay horumarka iyo barwaaqada dalkooda si la mid ah dadka Shiinuhu mar walba waxay jecel yihiin dadka jecel nabadda sida Soomaaliya